soo dhawaada asxaabay waxay isweydaarsadaan ibn aadamku taariikhaha iyo qisooyinka basharkii uu nabigu liqay dhammaanteena waynu wada garanaa qisadii nabi Yunus calayhi salaam waxaanu ahaa nabigii uu nabigu liqay waxaas lagu sheegaa taariikhii hore in nabiga liqay uu ahaa nabigii ugu weynaa xilligaas quraankuna waxa uu sheegay in nabi Yunus uu nabi liqay inta kadibna uu nabigu calayhi salaam ku guuleystay inuu ka soo baxo caloosha nabiga kadib markii uu eebo toobad keenay laakiin markaynu halkaas ka dhigno mucjisada nabiga maxaa ku dhici kara hadduu nabi ku liqo maxaad se kala kulmi kartaa calooshiisa ugu horeyn waxaynu tilmaami doonaa xaqiiqooyin kooban oo ku saabsan nabiga intii aan u galin qisooyinka dadkii uu nabigu liqay iyo sidii u badbaadiyeen nafahooda nabiga nooca weyn waa nabiga buluuga ah dhererkiisuna waxa uu gaaraa 30 mitir halka culayskiisu yahay ku dhawaad 180 tan carabkiisu kaliya waxa uu leeyahay maroodiga nooca ku nool qaaradda Aasiya nabigu waa bilaayilko waxaana la yiraahdaa in qofka gala afkiisa aanu wax dhibaato ah la kulmin aynu ku soo noqona dadkii nabigu liqay qisooyinkooda 2015 waxa uu ahaa weji Marcus kalluumaysta ka kalluumaysta wadanka Isbaanishka waxaana dhacday maalin isagoo kalluumaysanaya inuu nabi liqo waxaanu ku noolaa ninkani caloosha nabiga 3 cisho kadibna isagoo nabad qaba ayuu ka soo badbaaday kana soo baxay waxaanu qisadii la wadaagay asxaabtii ay wada kalluumaysan jireen waxa la yaabka ahna waxay noqotay markii qisadii lagu faafiyay internetka waxaanay noqotay sheekadii mid laga shakiyo gaar ahaan muddada 3 cisho ah ay ahayd isla muddadii uu nabi Yunus calayhi salaam ku soo qaatay caloosha nabiga waxaana cadaatay sheekadan beenta ah ee isku soo dhoobdhoobay ninkani waxa jirta qiso kale oo caan ah oo la beenin ilaa maanta waana qisada ku dhacday nin lagu magacaabo James Bartley 1981 waxa la qaynibiri Master Bartley inta kadibna waxa uu muddo ku dhex noolaa caloosha nabiga ilaa nabigii dhintay waxaana qisadan soo qaatay oo balbalaadhay warbaahinta Mareykanka iyo Ingiriiska halka ay qoreen warbaahinta Ingiriisku badbaadadii Yunus ka xilligan waxa uu ahaa Bartley waxa lagu magacaabo sailor oo ah nimanka badda mara waxaanu ka shaqayn jiray doon magaceeda la yiraahdo xidigta bariga markii doontii jidka ku sii jirtay waxay arkeen shaqaalihii doontu waxay moodeen kalluun laakiin ahaa nabiri weyn oo ku dabaalanaya xeebaha u dhow jasiiradda Falkland ee dhacda koonfurta Ameerika shaqaalihii waxay go'aansadeen inay qabsadaan kalluunka iyagoo diyaarsaday qalabkii ay ku dabi lahaayeen waxaanay ku noqotay lama filaan in wixii kalluunka ay moodayeen uu nabiri noqday qalabkay ugu talagaleen inay nabiriga ku qabtaanna nabirigiiba ka xajmi weynaaday barkoodna badii bay ku daateen waxaanay nabirigii ku dhaawaceen kuwii doonta ku hadhay waramadii doonta u saarnaa kuwii badda ku daatayna badankoodu way soo badbaadeen laga reebo qof badda ku qarqoomay iyo qof kale oo la waayay qofka la waayay waa ujeedka qisadeena waana Master Bartley kadib markay dhaawaceen shaqaaluhu nabiriga waxay isku dayeen inay soo dhaweystaan dhinaca xeebta maalin iyo bar kadib markay shaqaaluhu bilaabeen jarjaridda hilibka nabiriga waxay arkeen wax dhaqdhaqaaqay oo ku jira caloosha nabiriga halkana waxa ka soo baxay Bartley oo ku soo qaatay ku dhawaad 36 saacadood caloosha nabiriga wargeysyo badan baa baahiyay qisada Bartley iyagoo hadalkiisa soo qaatay isagoo leh waxaan galay mugdi aan waxba arkayn inta kadib waxaan qaab degan ugu duulay oo maray dhuunta nabiriga kadib waxaan u gudbay meel ballaarka qol aad moodid waxaanu sii raaciyay inuu awooday inuu cagiisa ku istaago dhaqdhaqaaqna sameeyo markaan waxyaabaha qaar u dhawaado waxay shabahayeen cali waxaanu ahaa waxyaabihii hore ee nabirigu liqay haddaynu dhan aqooneed ka eegno qisadan ma jiro qof inkiri kara inuu nabirigu basharka liqo waxaanay sheegayaan culimadu in haddii nabiriga ku liqay yahay nabiriga buluuga ah aanu qofku dhaafi karin hungurigiisa sidaa awgeedna waxa raajixa inuu qofku ku noolaado afka nabiriga waanay sahlan tahay inuu mar kale dibadda u soo baxo qofkaasi oo uu soo tufo nabirigu balse haddaanu nabiriga ku liqay aanu ahayn nabiriga buluuga ah oo uu yahay noocyada kale tusaale ahaan ka loo yaqaan cambarka iyo kuwa kale la midka ahba waxay liqaan kalluun intii doonaan ka waaweyn basharka waxaanay sheegaan khubaradu haddii aad ka badbaadid afka nabiriga nooca khatarta ah kuna sii socotid dhinaca calooshiisa dhibaatada kale wajahaysa inay tahay nidaamka dheefshiidka nabiriga waxaana laga yaabaa inuu ku jarjaro sidaana u dhaadhacdid calooshiisa balse haddaanay waxba ku soo gaadhin kana badbaadid nidaamka dheefshiidka nabiriga waxaad u dhaadhici doontaa qolalka ku yaala caloosha nabiriga si kastana waad ku dhiman kartaa gaar ahaan oxygen la'aanta ka jirta awgeed waxaana kugu adkaanaysa inaad neefsato halka aad heli karto gaaska dabiiciga ah ee loo yaqaan methane gas taasoon faa'iido badan ku lahayn waqtigaas sidaa awgeed waxaa jira dad badan oo intaa baarayay qisooyinka dad uu nabiri liqay kadibna ka soo badbaaday laakiin macluumaad aad u badan oo qisooyinkan ahayn ma helaan balse haddii ay dhacdo inuu nabiri qof liqo dariiqada kaliya ee ku badbaadi karo qofkaasi waa inuu sugaa inta uu nabirigaasi ka soo tufayo